fadhiyaa qaadka waa la joojinayaa markii la yidhi kenya ergey soo dirsatay ergadaasuu hogaaminaya wuxuu yidhi ingiriisow ogow lacagta aan qaadka uga qaadano soomaalida oo ku gadano ma aha only inaan carruurta biil ku siisano iyo school fees inaan ku bixinno iyo inaan ku noolahay keliya ma aha ingiriisku waa inuu ogaadaa waxaan ka mid nahay commonwealth waxaan nahay dad christian lacagta aan halkan ka helno soomaalida ka helno boqolkiiba 10 waxaan ku dhisnaa kaniisado waxaan ku daawacnaa bayballo waxaan ku fidinaa diinta masiixiga including east africa oo dhan maan ku gaarsiinaa kelmadda uu ninkaas maalinkaas sheegayay mar walba waa soo xigtaa sababtoo ah halkaas waxaa iga baxay rag badan oo muqayiriina oo garowa jooga oo diinta masiixiga fidiyay inay jiraan lacagtooda ku fidiyay waan ogeyn maanta waxaan rabaa inaad iga gaarsiisaan fariintaas qaada waa idinku qaan ninka qaadka cunow ogow haddaadan horay u ogeyn maanta ogow xoolaha aad carruurtaada ka qadisay xoolaha aad naftaada u diiday xoolaha aad dayn iyo daad iyo si walba ku keentay waxaa loo isticmaalaa in lagu fidiyo diinta masiixiga waxaa lagu dhisaa kiniisado waxaa lagu daawacaa bayballo haraf haddaadan u ogeyn ilaahay baa kaa cafinaya laakiin maanta waad ogtahay idinkana fariintaas caamay ugu tahay gaarsiiye ha laga digtoonaado haddaad u diyaar garowda inaad ilaahay dagaal la geshid